السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Somali Tech News oo had jeer idin soo gudbiya casharada ku saabsan tiknoolajiyada iyo waliba wararka u dambeeya caalamka ka dhaca. maanta waxaan baranaynaa cashar ku saabsan tiknoolajiyada waliba qaybta computerka inta ka horeysa daawadayaal soo noqod wanaagsan. waxaan ku baranaynaa casharkan ama fiidiyogan sidii computerkeena aan culayska uga saari lahayn maadaama computerka uu mar walba mararka dambayso ama faylasha aan waxtarka u lahayn computerkaada ku soo biiraan oo aad u cuslaado. haddaba sidee baan uga dhigaynaa fudayd casharkeena ayaan ku baranaynaa ee la socod wanaagsan. sidoo kale waxaa xusuusin mudan in habab badan aan isticmaali doono ilaa 3 hab oo computerkaada aad culayska uga saari karto fudayd uga dhigi karto. qaybta koowaad ila soco talaabooyin ayaan qaadayaa. talaabooyinkaasi ayaan xusayaa si fiican fiiro gaar ugu yeelo. start buttonka ama window keyga ayaan taabanayaa. waxaan ku qorayaa qaybta searchingka ayaan waxaan ku qorayaa run, then enter waa oranayaa. halkaan ayaan waxaan ku qorayaa tusaale ahaan prefetch ayaan ku qorayaa prefetch ayaan ku qorayaa. dan waxaan oranayaa okay. markii aan okay iraahdo faylashan ayaa ku jira hadeertaan computerkayga. faylashanna waa maadaama waa faylal aan waxtar u lahayn computerka balse marar qaarkood inay culays ka dhigaan computerka laga yaabo. haddaba maxaan sameynayaa control A ayaan leeyahay oo dhiganta all. kadib waxaan oranayaa delete calaamada ama buttonka delete ama waxaan taabanayaa shift plus delete. then waxaan oranayaa yes sida halkan uga jeedo yes ayaan oranayaa. waa ka faylashii hadeertan waa la tirtiray halka fayl baa haray hadeer. marka faylashaasi waxay ahaayeen kuwa culays ka dhiga computerkeena marka waan iska dhileynaa hadeertan. haddii aan halkaasi kaga nimaadno habkaasi koowaad ama qaybta koowaad ee computerkeena aan sidii aan culayska uga saari lahayn, kadib haddana isla sidii habka labaad waxaan imanayaa qaybta start buttonka ama window keyga. kadib waxaan ku dhufanayaa searchingka waxaan ku qorayaa run isla sidii enter baan oranayaa. markaan halkan meeshii aan markii hore kaga qoray prefetch hadeertan waxaan ku qorayaa calaamada percentage ama boqolleyda oo lala taabto shift plus number 5. kadib waxaan ku qorayaa horay ayaan casharo kale ugu diyaarinay. kadib tembe ayaan ku qorayaa shift plus hadana number 5 oo boqolleyda. then okay waa oranayaa. wuxuu keenayaa faylashii halkan ayuu igu soo taxayaa. then faylashaasi ayaan mataqaanaa dhileediya control A waa oranayaa. then waxaan oranayaa shift plus delete ama delete. then waxaan ka reebayaa about screen software screen recorderkaasi waa kana isticmaalo shaashada computerka aan ka duubaya hadeertaan programka aan isticmaalay way kaas ayaan ka reebiyaa iyo team viewerka. waa ka hadeertaan waa aan tirtiray inta yarta ayaa ku hartay. marka waxaan u maleynayaa intan inay waxyaabo barnaamij kale oo muhiim u ah computerka inay faylashooda yihiin. haddii aan imaado habka saddexaad ee haray maadaama aan laba hab hadeertaan soo sheegay waxaan imanayaa recycle binka ayaan imanayaa. kadib faylashii aan leeday ayaa ku jira faylashaasi ayaan ka saarayaa computerkayga ama recycle binka computerkayga. faylashaasi ayaan leedayaa enter oranayaa continue. hadeertaan computerkii waa nadiif garaynay. hadeerta waxaan rajeynayaa inuu noqdo fudayd ama click marka waxaad ku dhufato uu hore ka galo. haddii aad siyaabo kale ama habab kale loo nadiif gareeyo ama loo culayska looga saar computerka aad garanayso fadlan qaybta commentiga nagula wadaag. haddii aad video ka heshay channelkana aad ku cusub tahay fadlan waxaan ka codsanaynaa subscribe noo saarto casharkana aad sii share gareyso si dadka kale waxa aad faa'iiday ay uga faa'iidaan. mahadsanidin.